quruxda iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo cajabisay dad fara badan oo ku nool dunida dacaladeeda waxa ay keentay in laga dhex qayliyo waxaa aniga dhex qalin rag kaliya ma ahan waa rag waa dumar waa hooyooyin waa ilmo de waa la yaabaa adduunkii dhan de marka quruxda soo bandhigay de anaga aqaan ku jira de oo xoohayo ka qurux badanahay qofka aan ka hadlayo waa Samara Steel waa gabadha ugu quruxda badan waqti xaadirkan gabdhaha reer Galmudug ayay la soo daristay xaalad adag oo caafimaad darro kadib markii ay rag iyo dumar badan ka dhex qayliyeen kana heleen quruxdeeda Samara oo baryahana laga waayay baraha bulshada ayaa iminka lagu quraan saaraya dugsi quraan ku yaala degmada ay ku nooshahay Gurceel waxaana booqanay dugsiga lagu quraan saarayay Samara iyadoo macalinka iyo ardaydiisa ay ku akhrinayaan kalaamka Alle si looga xijaabo isha bini'aadamka Samara oo nala hadashay quraan saarka kadib waxay noo sheegtay in ay habeenadan hurdo ladin oo laga dhex qaylinayo loona sheegay in rag iyo dumar badan oo quruxdeeda ka helay ayaa ka dhex hadleen iyaduna ay dooratay inay quraan saarto qof haba yaraatay ka yeelay ma jirto gabar baa ka qurxoon anigana waan soo ogahay inaan qurxoonahay bulshadana way ogtahay ilaahayna wuu ogyahay marka horta maraad isku eego quruxda dadka horta iga sheegaya markaas baa horta rumaystaa de qof inaan qurux badan ahaan de bulshada ay sheegtay hadartana is sheegayo quraasar bay socday maanta ay soo gabagabay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh de waxa adigan ay daawanayaan de maanta wixii ka bilowday waxna igama qaadi karta il iyo waxaas oo dhan horta waxa igu daran wax kale ma ahan waa marka laamiga aan maray habeenka cashada soo doonanayo de markaas baa horta igu daran de aniga xataa wallahi waan xishooda toobto dadka dhan ay soo eegaya kor aan baan dareema madaxa sakay xanuunay de wax ka de gabar ka dhex qayliso inta lagu arkay de rag waxa arki jiray gabdhaha ka dhex qayliya laakiin gabar ka dhex qaylinaysa lagu arkay waa ma dhicin adduunka aan hadda ugu horeeyo adiga ka dhex hadlay dumar de gabdho aan garanayo haan hebla dhigi kala maxad xoo maraga nagu qurxoonta qaraar baa haayade anu qaraarayaan laakiin waxa laga baa ka qurux badan adduunka dhan baan ka qurux badanahay station dheela wallahi si fiican bay soo dhaweeyeen maadaama quruxda soo bandhigtay anagana waxaan kugu dalagalnay quraan inaan ku saarno يعني أيقونو فرحات بيود أنا جنا فرحات بإيه هيت قرآن كأنه واحد إسكو صار واحد كله تهويرات مالهن حجاب قرآن كحجاب بإيه هي قرآن لجموه مرمى بتاعتن بهويراته قروح المركز صوب اللي جنا واحد إسكو أرك قرآن كا يحوه هيشرب بدن أندريم مسكح هذا سكي حنونته يعني قرب بدن أندريم صدرت أيان قرآن إسكو صار يدك بدن ويجرح قليات ما أنتوا حكي ما دكتور قرآن صدق ما لا يا قرآن يسوع ساراي إيش بالأدك يا قرآن ساراي إلهي مهدي الحمد لله وأنتو إيشو قبقبوبي حدنا أيان كإمادة أنا يسامحها والله هرت قرب بدن حتى أنا وهبينك والساحة وأنا مسكحة الجوجوع ده واحد صدق واحد يقول بلا هبينك برا برشة أكو صابيري قفل بنا جالسين بدي كرتيد مركو أركيسا وهاللينا يقولوا حدي دني حوها دساس من حوها أن قرآن سكسارة والله هرت مرة بحوها وكوا أن أدقوا هل أنت كوا ببورن كوا إسكعاتا كوا من مذو لكن دني هلك مليت واحد صار نرشي ده هرقة سوتها وش كده قفل دواوين ده سندر ده إلهي حاول يشوك الشمال ده ما استرك أنا استلمها بكلام بقرح ده أنا بسكون أحسن بقى نكبرنا إنه يقول حون تما بقى مسنبه وهكا نكبرنا موضوع اللي منقطته ما يا ما هو لو تلكريني مدحنا يرتاي يقول إحنا بإلهك تانا نكبر لا لا يا امين يا امين يا امين لو في عصمك الى ويبا يا امين يا امين يا امين يا امين القران الهي القران الهي وقصي خير لو قاسي يا امين يا امين عبد سلام فتح وصل شو كذا حكر عليه